ergadii ay nafareen inay suuroobi weyday inaanu u gudbino dhinacii kale arintay u suuroobi weyday ma aha inaanu dhinacii dawladda aanu war ka weynay ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed guddigay ku balansanaayeen yaa soo dhameystirmi waayay waliba sidaan hore u sheegnay guddigii beesha magaaladan degtay inkastay caasimadii tahay yaa soo dhameystirmi waayay ay nagu fareen noogu soo gudbisteen yiraahdeen arrinka waxa laga qabto intii aan dhibaato wadanka ka dhicin sidaad ka warqabtaan ee aad joogteen madashaas odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed way aqbaleen ergadii inay qaadaan ay aqbaleen inay dhinacii kale ee laga ergoonay in ay u gudbiyaan guddi iyagu qabtaan marka hore kadibna ay dawladda la kulmaan oo ergada laga ergoonayo ay u gudbiyaan arrintii halkan waxaanu galabta madasha samata bixinta Soomaaliyeed aanu kulankan uga codsanayo kulankan xaggayo ka yimid codsi ah inaanu u sheegno ergadii ay nafareen inay suuroobi weyday inaanu u gudbino dhinacii kale arintay u suuroobi weyday ma aha inaanu dhinacii dawladda aanu war ka weynay ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed guddigay ku balansanaayeen yaa soo dhameystirmi waayay waliba sidaan hore u sheegnay guddigii beesha magaaladan degtay inkastay caasimadii tahay yaa soo dhameystirmi waayay annaguna meelo kala duwan baanu ka nimid haddii guddigu uu foom garaysmo oo la soo dhameeyo halkayagii baanu kaga jiraa laakiinse waxay nala ahaan weyday inaanu iska tagno annagoo aan wax wara guddiga golihii samata bixinta aan ku soo celin ergadii inayan socon wax shaqo ayan socon inaanu annagu safarro kala galayno oo geed weyn in gubtaa waa hoostaalla arrintaasaan kulankayagu waadna aragtaan oo dhinac baanu u badanna kulankayagu taasuu daaraa taasi waa intii annagu aan ku wada soconnay aniga midda dheer aniga igu kooban barigii hore hilibka aad looma jincin jirin sida hadda dadkan ilka alaama ahayn Soomaalidii hore hilibku isagoo mar laga soo rogay biyuhu kareen oo adag yaa ilaahay duuku rooyahay xeerada ragga la soo dhigi jiray mindiyuhuna ma badnayna hal mindi kaliya yaa la soo raacin jiray marka niman mindida ku goosani hilibka ma goosan karay oday sodoga yaa ku arkay wiilku sodoga oo ahaa oo mindiga kaligii dusha ku haysto marka wuxuu yiri hebelow wixii ka dhaxeeya badka la dhigaa intaas aniga ay gaaraytay wabillahi tawfiiq